bismillaahi raxmaani raxiim. subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada warka subax ee redio rugsan. anigoo faadumo abukar cabdi ayaa idinla socodsiinaya. cabdimajiid bakar xasan ayaan ii farsameynaya. qodobada saaka aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo magaalada addis ababa kula kulmay madaxweynaha golaha midowda yurub. magaalada boosaaso oo maanta lagu wado in lagu qisaaso raggii ka dambeeyey kufsigii iyo dilkii loo geystay marxuumad caaisho ilyas. ururka haweenka gobolka banaadir oo ku baaqay in sharciga la hor keeno dadka geysta tacadiyada haweenka. cabdiraxmaan cabdishakuur oo ku eedeeyey dowladda federaalk in ay dabagal ku hayso dhaqdhaqaaqyadiisa. maamulka gobolka gedo oo ka warbixiyey dhaqdhaqaaqyada ciidanka dowladda federaalk ay ka wadaan degmada beled xaawo. taliyaha howlgalka africom oo maanta kismaayo ku wajahan. hogaamiyaha xisbiga wadajira oo ka hadlay dhismaha dowlad goboleedka banaadir iyo mashruuca dowladda qatar ay ku dhisayso dekedda hobyo. siyaasiga faarax macalin oo ku eedeeyey maraykanka inuu xadayo kheyraadka soomaaliya. akhbaaraadka caalamkana waxaad ku maqli doontaan turkiga oo sheegay in ay duqayn ku dileen 100 ka tirsan askarta dowladda siiriya iyo tirada askarta maraykanka ee xanuunka waalida kana qaaday duqayntii iiraan ay la beegsatay saldhigga maraykanka oo sii kordhaya. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel walbo aad joogtaan. waa subax talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 11 Febraayo sanada 2020. waxaad soo maqasheen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo ee redio rugsan. markana u diyaar garooba iyagiyo faahfaahsan. madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada addis ababa kula kulmay madaxweynaha golaha midowda yurub, siduu warkan kusii faahfaahinayo mahad mutawakal. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa wadahadallo kula yeeshay magaalada addis ababa caasimadda dalka ethoobiya madaxweynaha golaha midooda yurub mudane charles michel. waxay iska wareysteen horumarka dowladda soomaaliya xilligan ay ka sameyneyso dib u haweynta hay-adaha amniga, horumarinta dhaqaalaha, xaaladihii ugu dambeeyey ee geeska afrika iyo taageerada midooda yurub ee dowlad dhisida soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya ayaa uga mahad celiyey kulanka uu la qaatay madaxweynaha golaha midooda yurub mudane charles michel, waxaana uu sheegay in midooda yurub xilligan dowladda federaalk soomaaliya uu siinayo kaalimo kala duwan. madaxweynaha soomaaliya ayaa addis ababa kula kulmay madaxweyneyaal kala duwan kuwaas oo ka socday qaar ka tirsan wadamada caalamka iyo weliba mas-uuliyiin kale. waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarayaasha norway iyo canada kuwaas oo lagu casumay meertada 33aad ee midooda afrika kaas oo ka dhacay addis ababa. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo inta uu ku sugan yahay addis ababa sidoo kale waxaa la qorsheynayaa inuu xilligan kulamo kala duwan uu la qaato madax kaloo ka socota caalamka kuwaas oo qayb ka ahaa martida lagu casumay meertada 33aad ee midooda afrika. magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa maanta lagu wadaa in lagu qisaaso raggii ka dambeeyey kufsigii iyo dilkii loo geystay marxuumad caaisho ilyas. warkaasi iyo war kaloo ku saabsan ururka haweenka gobolka banaadir oo ku baaqay in sharciga la hor keeno dadka geysta tacadiyada haweenka waxaa inoo soo jeedinaysa mulkheyr abukar cumar. maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta laga sugayaa inay fuliso xukunka dilka ahaa oo lagu riday raggii ka dambeeyay kufsigii iyo dilkii Allah u naxariistay marxuumad Caaisha Ilyas Aadan. xiriiryaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan Aw Cusmaan ayaa horaantii bishii January sheegay in 11 bisha labaad oo maanta ku aadan lagu ridayn doono raggii dilka lagu xukumay ee ka dambeeyay kufsigii iyo dilkii marxuumad Caaisha Ilyas. saddexda eedeysane ayaa lagu kala magacaabaa Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige. qoyska Caaisha Ilyas ayaa maamulka Puntland u wakiishay in loo fuliyo xukunkii qisaasta ahaa oo ay cadaalad ku helayso gabadhoodii oo bishii labaad sanadkii hore tacadid fooshxun loogu geystay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. mas-uuliyiinta maxkamadda sare iyo qoyska marxuumad Caaisha Ilyas
ayaa ku wada sugan magaalada Boosaaso halkaas oo laga filayay in maanta lagu fuliyo xukunkii qisaasta ahaa oo ay dad badan wada sugayeen. Dhinaca kale hay'adda garsoorka Puntland ayaa waxay horey kiisaskan la mid ah ka dhacay magaalada Garowe bishii 3 ee sanadkii hore kadib haweeney xaas ahayd oo hooygeedii ka deganayd magaalada Garowe ee gobolka Nugaal loogu galay halkaasna loogu geystay tacadi iskugu jira dil iyo kufsi. waxayna maxkamadda Puntland sheegtay in raggii ka dambeeyay dilkaasi fooshin cadaalad la horkeeni doona. dhanka kale gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa sheegtay in ay soo dhaweynayeen ka haween ahaan xukunka maanta lagu fulin doono dilkii loo geystay marxuumed Caaisha Ilyas iyadoo sidoo kale sheegtay in cid walba oo geysata tacadi looga geysanayo haweenka Soomaaliyeed cadaalad la horkeeni doono. waxay noqon doontaa markii ugu horeysay taariikhda la soo qabto in maaragtay kufsi dhalinyaro geysatay ku xadgudbay dilay haddana sida maaragtay shariicada islaamka ka baxsan ku dhaqmay haddana sharciga lagu xukumay waa soo dhaweynaynaa taariikhdayna gelaysaa waxayna tusaale ay ka dhigan doonaan dhalinyarada muqaadaraadka iyo xalaqa iyo qamriga iyo daraagiska iyo xashiishka iyo waxyaabahaas actionka maaragtay filimada laga daawanayo oo practical ahaan lagu samaynayo gabdhaha iyadana waxaan leenahay waa arrin qaldan hala joojiyo tacdiyada ka dhanka haweenka tusaaleyna u noqon doontaa weysha gowrac dib waa quustay waxaa ka dhacay Puntland gebi ahaan dalka Soomaaliya kufsiga ka dhaca dilala ka dhaca wax walba ka dhaca waxay la tahay inay uga waantoobi doonaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala inay ka baqaan culimada Soomaaliyeedna in ay badiyaan wacyigelinta waalidiintana aan dhaano hooyo iyo aabe cid walba oo aan tahay ha ogolaanin ilmahaaga in ay geystaan dhibaato. maanta oo talaado ah ayay taariikhdan ku beegan tahay 11 bisha 2020 laga sugayaa maxkamadda inay fuliso xukunka ay ku dishay raggii ka dambeeyay dilkii Allah u naxariistay Caaisha Ilyas Aadan oo 12 sano jir ahayd ka oo ay u geysteen kufsi dil. mahadsanid mulkhayr. maamulka gobolka Gedo ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhaqdhaqaaqyada ciidanka dowladda federaalka ay ka wadaan degmada Beled Xaawo. Ilyas Daawud ayaa warkan inoogu faahfaahinaya. axmed barre sheekh cabdulaahi oo ka mid ah gudoomiye ku-xigeenada gobolka Gedo ee dowladda federaalka ayaa isaga oo waraysi siinayay warbaahinta Rugsan waxa uu beeniyay dhaqdhaqaaqyada ciidanka dowladda federaalka ay ka wadaan degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo in ciidankaasi ay ku wajahan yihiin gudaha degmada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. waxa uu sheegay Kenya iyo Soomaaliya in cilaaqaad uu ka dhaxeeyo marnaba aysan dhici karin in ciidanka dowladda federaalka ay ka tallaabaan xadka Kenya ay la wadaagto dhinaca Soomaaliya isaga oo sheegay intaasi ay noqonayso mid markaa xadgudub ah. waxaana uu sheegay in soo qabashada Cabdirashiid Janan ay tahay mid iyagu ay ka wardhoorayaan dhinaca Kenya isla markaana ciidanka dowladda federaalka ee ku sugan degmada Beled Xaawo hawshaas ay fulinayaan. waxaana maamulka degmada Mandheera uu sheegay in ay iska soo saarayaan mas'uulkaasi. ciidanka dhaqdhaqaaq uu ka wadaa degmada Beled Xaawo laakiin ma ahan dhaqdhaqaaq ku wajahan Kenya iyo xuduudda tuna mana ahan ciidankan Soomaaliya ama dowladda federaalka ciidankeeda ee tagay halkaas inay Kenya galayaan ma ahan taaka dhulka Kenya ama galayaan mana u joodaan waxay u joodaan inay xasiliyaan gobolka iyo degmooyinka iyo dhaqdhaqaaqa labada magaalooyinka Beled Xaawo Luuq Soolow maxaa la dhihi jiray Garbahari Baardheer in dhaxdaas ay furaan bay u tageen moogiye uma aysan tagin inay xuduudda Kenya ay wax ka sameeyaan waayo labada dowladood waa laba dowladood dirisa waxayna Soomaaliya 100% ixtiraam siinaysaa dadka walaalaha ee diriska isla degan mana ay jeclo mar walba inuu dagaal Soomaaliya ay samayso ayadaa nabadda ilaalinayso xurmada muujinayso mana yeelayso wax dowladda Kenya cadow ku ah inay Soomaaliya ay ka dhaqdhaqaaq ka sameeyaan haddii bal ka fursan weyda ayagaaba ciidan ka soo horjooda dowladda Soomaaliya ku sameynayo xuduudda inkastoo ay shacabka Kenya iyo dowladda dadkii laga soo doortay mudanayaashii laga doortay Mandheera ay ka dhibiyeen oo arrintaas ay ka hor imaadeen ayna u qabteen muddo gaaban sida aad shalay miidiyaha ka dhageysanayseen inay ka baxaan oo aysan raalli ka ahayn haddii ka bixi waayeen ayaga ay dheheen annaka gacan ula tegayno iska saarayno oo ay u qabteen 2 qodob oo ah maba ku wajahnaba walaal arrintaas waa been aan sal iyo raal lahayn ciidankana ma joogaan xuduud beenaadka waxay joogaan magaalada Beled Xaawo Beled Xaawona waa Soomaaliya inay xasiliyaan oo tagaan dowladda waajib bay ku tahay
dhulkaas xuduudaha iyo waxa iskaga gudbaayay iyo dhanka kale oo maxaa la dhihi jiray soomaaliya dee meel kastoo xuduudeeda inay tagto dowladda federaalka waa waajib walaal. waa ciidamo yar oo taabacsan wasiirka baxsiga ahaa wasiirkii amniga ee Jubbaland kaas oo ciidamo yar oo kooxa ku haysta xuduudda Mandera war ku tiri ku teenana waxa uma tarahayo waxay joogaan Mandera waxay joogaan xuduudda Kenya ku jiraan. axmed bare sheekh cabdulaahi oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka gobolka Gedo kana mid ah gudoomiye ku-xigeenada gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay haddii ay dhacdo in dhinaca Mandera weerar lagaga soo qaado ciidanka dowladda federaalka in ay isdifaacayaan balse aanay dhici karin in ciidanka dowladda federaalka weerar ay ku galaan gudaha degmada Mandera. waxaana uu sheegay in ciidankan dowladda federaalka ee ku sugan degmada Beled Xaawo ay yihiin kuwa sugaya amniga deegaanada gobolka Gedo oo uu sheegay in halka ay u joogaan xasilinta deegaanadaasi. waxaana hadalkan ka soo baxaya maamulka dowladda federaalka ee gobolka Gedo uu ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe xiisado ay ka jireen degmada Beled Xaawo halkaas oo ay isku horfadhiyeen ciidamo ka kala tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland inkastoo ciidanka Jubbaland gudaha ay u galeen degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya. hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa ka hadlay dhismaha dowlad goboleedka Banaadir iyo mashruuca dowladda Qatar ay ku dhisayso dekeda Hobyo. dhinaca kale hogaamiyaha wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu dowladda federaalka ku eedeeyay in ay dabagal ku hayaan dhaqdhaqaaqyadiisa. maxamed cabdi xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu hadalkaasi ku sheegay waraysi khaas ah oo uu siiyey warbaahin laga leeyahay dalka Imaaraadka oo lagu magacaabo Al-Khaleej 360.com. siyaasiga waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya isaga ay ku hayaan ilaalo iyo sidoo kale dabagal la xiriira dhaqdhaqaaqiisa gudaha iyo dibadda waa sida hadalku uu dhigay. waxa uu intaa ku daray in ay jiraan walaac badan kadib weerarkii ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dileen 5 ka mid ah ilaaladiisa ee uu isaga si dirqa kaga badbaaday weerarkaasi. waxa kale oo uu ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in isaga ay ka horjoogsadeen kulan uu bishii hore la yeelan lahaa ardayda Soomaalida ee wax ka barata dalka Malaysia isla markaana uu ka cabsi qabo in dowladda mar kale ay ka horjoogsato kulan uu doonayo in uu la yeesho ardayda Soomaalida ee ku nool dalka Masar. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa kale oo uu waraysigiisa ku sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya isku tijaabinayso sidii sumcadiisa wax loogu dhimi lahaa waa sida hadalku uu dhigay. waxay kaloo isku dayayaan in sumcadeeda ay xumeeyaan iyagoo warbaahinta u soo maraya iyo in 100,000 ay ku bixiyaan in ay saamayso arintaasi ayuu yiri siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. waxa uu intaa ku daray in dowladda haatan jirta Soomaaliya ay tahay mid itaal daran oo aan awood u lahayn in ay dhageystaan aragtida dadka ka soo horjeeda waa sida hadalku uu dhigay. siyaasiga oo waraysigiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in aysan cagajugleyntaasi ka joojin doonin hadafkiisa iyo in dadka Soomaalida uu la wadaago aragtidiisa ku aadan muhiimadda nabadda iyo dhismaha dowlad midaysan oo federaal ah mas'uul ah oo dowlad Soomaali oo xor ah. gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dhiso dowlad goboleedka Banaadir si wax ay ula qaybsato dowlad goboleedyada kale ee qaybta ka dowladda federaalka Soomaaliya. waxa uu intaa ku daray in loo baahan yahay wada xaajood gudaha oo ku aadan arintaasi isla markaana ay dhismaha dowlad goboleedka Banaadir ay tahay mid qaanuuni ah oo sharciga waafaqsan. siyaasiga waxa uu xusay in macquul aanay ahayn in gobolka Banaadir aanu lahayn xuquuq siyaasadeed loona baahan yahay in dadka wada xaajoodka ay ka yeeshaan sidii loo heli lahaa xalka ugu wanaagsan ee dhismaha dowlad goboleedka Banaadir. dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu soo hadal qaaday galaangalka dowladaha Turkiga iyo Qatar ee arrimaha Soomaaliya wuxuuna dowladda Qatar ku eedeeyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay siiyaan maalgelin ballaaran iyaga oo u soo marinaya nidaamka maaliyadeed ee sharciga ah si uu madaxweyne Farmaajo ugu adeegsado lacagahaasi in uu ku afgambiyo dowlad goboleedyada dalka waa sida hadalku uu dhigay. lacagahaasi waxa kale oo loo isticmaalay in lagu aamusiyo siyaasiyiinta mucaaradka iyo in lagu kala qaybiyo ama lagu laaluusho xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo waraysigiisa ku soo bandhigay cadeymo ku aadan eedeymahaasi. siyaasiga oo deegaan ahaan ka soo jeeda dowlad goboleedka Galmudug waxa uu waxqabadka dowladda Qatar ku sheegay in
uu yahay mid kooban oo warbaahinta looga sheego laguna buunbuuniyo oo keliya waa sida uu tilmaamay. waxa uu soo hadal qaaday mashruuca dowladda qatar ay ku dhisayso dekedda magaalada Hobyo isagoo sheegay in aanan weli la dhammaystirin. ballanqaadyo ayay dhowr jeer hore sameeyeen in ay dhisayaan dekedda magaalada Hobyo, mana jirto wax howlgal ah oo lagu fuliyey ballanqaadyadaasi. qatar waxayna samaysay ballanqaadyo 11 mashruuc, mana jiraan xaqiiqdii wax ka fulay mashaariicdaasi, ayuu yiri hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadajir. waxa kale oo uu sii raaciyay hadalkiisa in uu tuhunsan yahay in ballanqaadyadaasi looga dan leeyahay oo keliya in warbaahinta loo adeegsado. ugu dambeyntii siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo waraysi siiyey warbaahin Carbeed waxa kale oo wax laga weydiiyey hadalkii uu madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan dhawaan uu ka sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku casuuntay in shidaal laga baaro xeebaha Soomaaliya. wuxuu kaga jawaabay in arinta shidaalka inaanan weli laga heshiinin iyo in aysan macquul ahayn in arintaasi oo kale lagu dhawaaqo iyadoo aysan dadka Soomaalida gudahooda arinka aanay ka heshiinin. Maxamed Cabdi Xasan, Rugsan FM, Muqdisho. taliyaha howlgalka Africom ayaa la filayaa in uu maanta gaaro magaalada Kismaayo. Mahad Mutawakil ayaa warkan mar kale inoo faahfaahinaya. waxaa maanta magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose lagu wadaa inuu gaaro taliyaha ciidanka Mareykanka Afrika ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan Africom Stephen Townsend. waxaana qorshuhu yahay inuu la kulmo hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. si cad looma shaacin ajendaha kulanka mas'uuliyiintan, balse waxaa meel sare gaaray khilaafka iyo madmadowga ka dhex jira Axmed Madoobe iyo weliba dowladda dhexe kadib markii uu xabsiga ka baxsaday wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan kaasoo hadda jooga Mandheera, iyadoona dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka jiraan deegaana dhaca gobolka Gado. mas-uuliyiinta ayay suurtagal tahay in kulankooda arrimahaas ay ku soo hadal qaadaan. deegaana dhaca gobolada Jubbooyinka ayaa Mareykanka mararka qaarkood waxa uu ka fuliyaa duqeyn diyaaradeed oo uu sheego in dowladda Mareykanka ay sheegaan inay la bartilmaameedsadaan xubno ka tirsan dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. siyaasiga Faarax Macalin ayaa waxa uu ku eedeeyay Mareykanka inay waxadayo kheyraadka Soomaaliya. Faarax Macalin Dawaaro oo ah xildhibaan hore ayaa soo jeediyey in dowladda Soomaaliya ay dib u eegis ku sameyso ku tiirsanaanteeda Mareykanka. waxa uu Faarax sheegay in Mareykanka uu xadayo kheyraadka wadamada ku jira ay ka jiraan kala dambeyn la'aanta sida Syria iyo Soomaaliya. dagaalka lagula jiro waxa loogu yeero argagixisada ayuu sheegay Mareykanku inuusan daacad ka ahayn. qoraal uu ku daabacay barta Twitterka ayuu ku sheegay in Soomaaliya ay dib u eegto ku tiirsanaanteeda Mareykanka ee la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada. sidoo kale la dagaalanka inta badan uu sheego Mareykanka in uu kula jiro Shabaab iyo Daacish ayuu dowladda federaalka kula taliyay in Mareykanka uu dib u eegis uu ku sameyso dowladda arrimahaasi in uu ka run sheegayo isla markaana ay dib uga fiirsato ku tiirsanaanteeda. beeralayda koonfur galbeed ayaa waxa ay ka barakaceen deegaanadii ay kaga sugnaayeen koonfur galbeed kadib markii uu anyax fara badan uu baabi'iyey dalagoodii. maxamed aadan socdaal ayaa warkaan inoo soo diray. muddo bilooyin ah ayay ku naawulayeen in ay goostaan dalagyada beeraha oo waqti badan ay geliyeen, balse ma aysan u qornayn waxaana xaleelay oo diiqda ka dhigay ayixii sanadkan bilowgiisa dul maray qaar ka mid a gobolada dalkeena. hadda waa barakaca ku sugan duleedka magaalada Baydhabo. wax rajo ah oo ay leeyihiin ma jirto aan ka ahayn wixii alle uu ugu soo qaado bulshada inta wax haysata. dadkan oo ka soo kicitamay tuulooyin hoos yimaada gobolada Baa iyo Bokool ayaa u booqday kaamamka kala ah Dano iyo Doon, Bilaal Kuusow iyo Midnimo, waxayna dhammaantooda ii sheegeen waxyaabaha ku kalifay in ay yimaadaan duleedka Baydhabo. deegaanada kolley dhan walba dadkii oo qasadheerka kooylankii oo bakoolka kooylankii oo baay hoostunga ka qaha kolley dadka iska jijaran dhan walba balin oo nooc walba leh haqa hawjaha badana dadka maybu ahan lamba lanko baaya ka roori lanko adiib ogsantahay amaan doriha ka roori sadigay sadab ngalo daayleena amay wala geedaan wala geedi madan oo taleela boobsaday amara lama atadiraagay sidaad aragaas diraagi wala baatagay maadagay fuulii dhatiyo aniba
walaalyaga olidka ka jaran aragdeeda iseen ma wali baatay horta geese damingan amay walaa loor koon dhamayne ogaawe rafaga la ku goy hamiinki ba la kowdheedo amara lama kashagan tama dhaafo agal wali oonayte ogaaw leeray naada gisay wala ogaaw wala qaadanin ha tomle baraka aan la filan dad bilooyin ka hor niyada ka ahaa maalqabeen ama ku faraxsanaa in ay gurtaan dalagyadooda ee beeraha ayaa xabiibaya buul ka dhigay maanta waa baraka dul fadhiya duleedka Baydhabo maxamed aadan socdaal radio Rugsan magaalada Baydhabo Chennai halkaad warkaasi subaxnimo kala socotaan dhegeystayaal waa radio Rugsan 94.4 megahertz markana akhbaaraadkii caalamka turkiga ayaa sheegay inay duqeyn ku dileen 100 ka tirsan askarta dowladda Syria ciidanka turkiga ayaa la sheegay inay duqeyntaasi la beegsadeen 112 goobood oo ku yaala gudaha dalka Syria isla markaana ay dileen 112 askarta Syriyaanka hadal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee turkiga ayaa lagu sheegay in duqeymahaasi lagu burburiyay 112 kamid ah xarumaha militariga ee dowladda Syria weerarkaasi ayaa la sheegay in uu jawaab celin u ahaa duqeyn ay militariga Syria shalay la beegsadeen bar military oo ay ciidamo Turkish ah ku sugnaayeen oo ku taala deegaanka Taftanas ee gobolka Idlib duqeyntaasi waxaa ku geeriyootay 5 ka tirsan askarta Turkiga iyadoo ay 5 kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kale isbuucii hore waxaa 8 askari oo Turkish ah lagu dilay duqeyn ay militariga dowladda Syria la beegsadeen bar wax lagu ilaaliyo oo ku taala gobolka Idlib ee waqooyi galbeed ee Syria ugu dambeyntiina tirada askarta Mareykanka ee xanuunka waalida ka qaaday duqeyntii Iran ayaa la shaaciyay waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa shaacisay kororka ku yimid tirada ciidankooda ku sugan gudaha Ciraaq oo ay xanuunsanaya dhimirka ee cudurka la yiraahdo TBI-da ka qaaday duqeyntii ay ciidanka ilaalada kacaanka Iran la beegsadeen saldhigyada ay ciidankaasi ku sugnaayeen hadal qoraal oo ka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay ugu yaraan 109 askari la xanuunsan yihiin cudurkaasi dhaawac maskaxda ah ee TBI-da iyadoo oo 76 kamid ah askartaasi la sheegay in ay dib ugu laabteen saldhigyadooda ku yaala gudaha dalka Ciraaq qoraalka waxaa lagu sheegay in 45 ay korodhay tiradaasi tan iyo markii la soo saaray warbixintii hore oo lagu muujinayay tiradii askarta xanuunka TBI-da ka qaada weerarkii ay ciidanka Iran bishii Janaayo 8 la beegsadeen militariga Mareykanka ee ku sugnaa saldhigga ciidanka cirka ee Al-Ain iyo saldhig kale oo ku yaala magaalada Arbil ee waqooyiga Ciraaq Iiraaniyiintu waxay kaga falcelinayeen duqeyntii ay Mareykanka ku dileen taliyihii guutada Qudusta ee ilaalada kacaanka Iran ee General Qasim Suleimani bishii la soo dhaafay 3 xilli uu ku sugnaa magaalada Baghdad madaxweyne Trump waxa uu sheegay in uu isagu amray dilka General Qasim Suleimani oo uu ku eedeeyay in uu abaabulayay mu'aamaro ka dhan ah danaha iyo ciidanka Mareykanka ee ku sugan dalalka bariga dhexe warkii subaxnimo dhageystayaal oo aad kala socoteen radio Rugsan saaka waa inaga inta